ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee dalka soomaaliya injineer maxamed xuseen rooble iyo wafdigii uu hogaaminayey oo safar cibaado ah ee gudashada waajibaadka cumrada ku yimid dalka sacuudi arabiya ayaa haatan rasmi ahaan u gudagalay howlahaasi diiniga iyagoo durbadiiba ku dhaqaaqay dhawaafka kacbada barakaysan ee maka almukarama iyo shuruudihii kale ee waajibaadka cumrada iyadoo safarkooda diiniga uu ku soo beegmay tobanka ugu dambeeya ee bisha barakaysan ee ramadaan kuna aadan waqtiyada la filayo in la kulmo leylatulqadar. haddaba wafdiga uu hogaaminayo ra-iisul wasaare rooble oo ay ka mid yihiin wasiirka waxbarashada hidahiya tacliinta sare ee soomaaliya injineer cabdulaahi abuukar, wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee dalka soomaaliya mudane duraan axmed faarax, wasiir ku-xigeenka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee dalka soomaaliya mudane cabdiraxmaan yuusuf al cadaala iyo mas-uuliyiin kale ayaa waxay dowladda sacuudi arabiya ay maamuus sare ugu talagashay soo dhoweynta wafdiga sare ee soomaaliyeed ee uu horkacayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya injineer maxamed xuseen rooble. haddaba wafdiga uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya injineer maxamed xuseen rooble oo shalay soo gaaray dalka sacuudi arabiya ayaa waxaa markii ay soo xagadheegtay diyaaradii gaarka ah oo ay la socdeen toos loogu gudbeeyey magaalada barakaysan ee maka almukarama, halkaasoo laga dejiyey degaano heer sare ah oo u gaara wafdiga soomaaliyeed inta ay ka dhammaysanayaan muhiimadda safarka ay ku yimaadeen dalka sacuudi arabiya. cali jaamac cilmi cali kuus, raadiah iyo telefishinka qaranka soomaaliya, sacuudi arabiya.